iyadoo dhawaanihii u dambeeyay khilaaf ka dhex taagnaa culimada magaalada Caynaba gaar ahaan culimada Timweynta iyo Saalixiyada taasi oo ka bilaabantay madrasad Quraan oo ay culimada Timweynta doonayeen inay ka dhistaan gudaha magaalada Caynaba isla markaana ay dhexdhexaadinaysay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay inay khilaafkaasi soo gabagabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland isduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Saramadana Jaamac Waqandhe ayaa ka warbixiyay sida ay wasaaradda diinta iyo awqaafta khilaafkaasi u soo gabagabisay sidoo kalena waxa uu tilmaamay inay warbaahintu ka waantoodo wararka noocaasi ah inay buunbuuniyaan isduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Saramadana Jaamac Waqandhe oo si gaar ah ugu warramiyay telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel ayaa ku dheeraaday inay khilaafkaasi wasaaradda diinta iyo awqaafta soo gabagabisay isla markaana loo saaray guddi dhexdhexaadina qalad yar oo ku qoran maaragtay website-da oo leeyahay waxa isqabtay culimadii deegaanka Caynaba ama gobolka Saramadana taas aan xoogaa yar ka bixinaya isqabadku uu jiray hase ahaatee ma ahayn wax buuran oo maaragtay qaranka iyo ummadda toona xudhinaya in yar isqabad oo culimada deegaanka malcamadaha dhigtay iyo maaragtay masaajidada iyo inama yar oo isjiri maaragtay malcamad yar meel ka furta ayuuna isqabadku ahaa tiina waxaa gacanta ku dhigay ciidanka markii ugu horeysay guddiga nabadgelyada iyo booliska arrintaana waanu isku soo gaadhnay shir baa laga yeeshay guddi baa loo saaray guddigaas oo uu madax ka yahay anigoo ah isduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo laba xubnood oo kale go-aan baanu ka gaadhnay oo kasoo saarnay hawshiina saasaa lagu xeliyey ay ku dhammaatay haddii la yidhahdo wax qaabo oo dambe oo ka jiraan ma jiraan wayna ku qanceen labadii dhinacba annagu haddaan nahay wasaarad ahaan culimada dalka wasaaradda awqaaftu waa u bax dhinacna ma raacsana qolana uma jejeedho wixii ay isku qabtaan xurgufaa wax weeyaan isku qabteen ma jiraan waxyaalo yar weeyaan intaan waa la xadibaa waana maxalilay maamulka dowladda iyo maaragtay iyo wasaaradda midna ma kala raacsano culimada saasana waana kusoo gabagabeynay hawshan ay ku dhamaatay xurgufa weyn ma jiraan wax isqabadoo diinta la iska qabtayna ma jirto wax haddeer taaganna ma jiraan waxaan kaloo qolada warbaahinta kale de kumara website-da xoogaa ayaan ku arkay qoraallo iska soo daba dhacaya oo laleeyahay waxa isqabad baa jira isqabad ma jiro waxaanu leeyahay aan ka codsanayaa bariyaha website-da ku qoray ma jiraan wax isqabade ama buubuunina wax maaragtay haddeerto taagan ma jiraan waxaan leeyahay ma jiraan wax isqabado si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay warbixin noocan oo kale ah ka soo saarto tan iyo intii ay culimada deegaanka magaalada Caynaba ay ku muransanayeen malcamad Quraan oo laga dhisay magaalada waxaana arrintan ka horeysay guddi loo saaray arrintani oo xukun ka riday labada dhinacna ay ku wada qanceen maxamed aadan dir telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel Caynaba.